shirkan iyo soo qaban qaabiyeen aqoon-yahanada qurba joogta iyo qaran joogta ka soo jeeda mid kamid ah beelaha deegaanada waqooyiga gobolka Galgaduud ayaa maanta ka furmay degmada Cabudwaq waqooyiga gobolka Galgaduud waxa uu ahaa shirkani ayaa ka talinta mid kamid ah beelaha deegaanadani oo inta badan ay kaga hadlayeen arrimo ku saabsan doorka siyaasaddu beeshu ay ku leedahay deegaanada dawlad goboleedka Galmudug iyo dawladda dhexe iyo qodobo kale oo ay kamid tahay adkeynta beeshan midnimada beelaha kale ee wadaagta ay yihiin waxa shirkan ka qayb galay siyaasiyiin ay kamid yihiin xildhibaano ka tirsan dawladda goboleedka Galmudug xubno xilal kala duwan ka soo qabtay dawlad goboleedka Galmudug oo ugu horeeyo wasiirka arrimaha gudaha Galmudug iyo xubno kale oo siyaasiyiin waxa shirkan oo muddo socon doona qodobada looga hadlayo si faahfaahsan xubnaha shirkan ka qayb galay oo la wadaagay Bishaar Xasan oo kamid ah dhalinyarada shirkan qaban qaabadeeda wax ka waday beeshu waxa isla garatay inay ka hadasho 4 qodob diiradana ku saartay shirweynadeeda socon doona muddada dhowrka bari ah qodobka koowaad waxa weeye doorka siyaasadeed ee beeshu ay ku leedahay Galmudug iyo dawladda federaalka qodobka labaad waxa beeshu diiradda ku saaraysaa barakacinta iyo dagaalka ka dhanka ah beesha qodobka saddexaad waxay ku saaraysaa diiradda deegaanada ka maqan beeshu oo ay degto qodobka afraad waxay beeshu ku saaraysaa diiradda doorka beelaha sida iyo midnimadiisa insha Allah hadii Ilaahay idmo waxaana insha Allah rajaynaynaa dhowrka bari uu socdo shirku in xoogga iyo diiradda lagu saaro qodobadaas odayaasha waxgaradka iyo aqoon-yahanada ganacsatada haweenka ururada dhalinyarada iyo xubnaha kale ee ka soo qayb galay shirkan ayaa dhamaantood shirkan si diiran u soo dhaweeyay waxayna sheegeen muddada uu socdo inuu muuqan doono doorkooda ay ku leeyihiin ka qayb galka shirkan waxa weeye daafurku ugu horeeyay xafladan iyo shirka Maxamed Aman Reer qolo lagu dhibaatayn mahayo dib loolama jeedo waa aaya ka talis tufo waxaanu mahadcelinaynaa qoladii qalqaalisay qurba joogta dibadda dhalinyarada ururka dhalinyarada labadoonyada golaha guurtiga culumaa u diinka intaasoo dhan waa u mahadcelinaynaa shirkan qiimaha leh oo la soo abaabulay oo dhalinyarada iyo gabdhaha iyo odayaasha iyo waxgaradka Maxamed Aman Reer isugu yimaadeen shirka daafurka waa soo dhaweynaynaa haddaan odayaasha nabadoonnada nahay haddaan culumaa u diinka nahay haddaan dhalinyarada nahay haddaan siyaasiyiinta nahay haddaan hooyooyinka nahay haddaan gabdhaha inamaha tahay shirkaas waa soo dhaweynaynaa waa shir Maxamed Aman Reer noloshiisa ka talinaya waa shir ayisa ay uga tashanayaan waxaan soo dhaweynaynaa dadkii soo qaban qaabiyay hadday dibad jiraan iyo hadday gudaha joogaanba waa u mahadcelinaynaa shirkaas waxaan u mahadcelinaynaa intii soo abaabushay oo dhalinyarada ahayd oo dibadda ka soo abaabushay oo dalka gudihiisa ka soo abaabushay oo intaanoo isku dana iskugu keentay intaasna waa u mahadcelinaynaa waxaan oran karnaa waxay ka shaqeeyeen arrin dheelitiran oo dhammaystiran oo Maxamed Aman Reer u dhan yahay hadduu siyaasiyiin aha waa fadhiyaan hadday culumaa u diin lahaayeen waa fadhiyaan hadday qurba joog lahaayeen khadkay ku jiraan shirka waxay kaga tashan doonaan mustaqbalkooda iyo aayahooda dambe warkiisuna gadaal buu jiraa ha israacdaan leenahay ha walaalowdaan leenahay ha is aragtaan leenahay waa soo dhaweynaynaa waa shil wixii ayaga dhexdooda soo gaaray ay ka tashanayaan waa shir qaran joog iyo qurba joog ba ay soo abaabushay mirihiisana gadaal baa looga hadlayaa waxyaabaha quseeya oo ayaga ka maqan ama ku maqan baa horta dadku ka tashadaa waxay ka tashanayaan wixii ka maqanna inay ka hadlaan wixii lagu leeyahana inay ka hadlaan intaabuu ku abaabulan yahay mawduucii hore oo dadku ka hadlay waa soo dhaweynay 4 qodob waana laga wada hadli doonaa qof walba ra'yigiisu ka dhiibanayaa aan ilaahayna ka baqno culimadu booskeeda ilaahay waligeed booskeeda ka hadashaa daacadan ka noqono gabdhaha daacad ka noqda odayaashu daacad ka noqda culimadu daacad ka noqda kuwa naga maqan oo hadda laga maqan yihiin oo ka soo qayb gala waxa loo arkayaa ninka shirka wagardhiceed oo socda oo ilaahay aanan hadda dad ku dulminayn dad u duulimayno dal dhici mayno xaq darro kaga shaqayn mayno caabud waa ku dulmin mayno wixii islaama inaan maslaxa ka qaadano wixii na qabtana qaadano waxaan qabanna nama qabtan iraanaan intaas aanu shiraynaa laba 30 kaanin oo gudiga maca kuwa dabada ayaga u madaxsan daacada ka noqdeen sida ugu haboon iyo sida ugu wanaagsan inaanu shirkaan uga miro dhalino inaana hagran
odayaasheeda haddaanu nahay waxaanu ka qaadan doonaa arrinta ugu weyn baanu qaadan doonaa waxaanu jeedin doonaa wax mustaqbalka wardhaceed wax u noqda baanu ka talin doonaa haddii alla idmo sidaasaanu shirkan ku soo dhaweynaynaa aana ku aqbalnay haddii alla idmo waxay arrintaasu noqon doontaa arrin loo bogo qolada soo abaabishana waa ku mahadsan yihiin qolada halkan ka abaabulayso dhallinyaradaahayna waa mahadsan yihiin waxaan ku ayidaynaa wanaagga iyo walaaltinimada iyo dhalashada iyo dhaqanka sida loo yidhi ha loo ilaaliyo oo ha loo dhowro oo ha loo dadaalo kuwii soo abaabulo dibadda soo abaabulay madaxooda allaha raajiyo kuwii daaqilka ka soo abaabulayna madaxooda allaha raajiyo shirkaanu waa shir hordhaca waxaan u mahadcelinayaa sida ay uga soo qayb galeen waxaan kaloo u mahadcelinayaa siyaasiyiinta iyo xildhibaanada muddo dheer shirkaas inuu qabsoomo kalsooni baan qabnaa magac baan leenahay sharaf baan leenahay xuquuq baan leenahay xuquuqdeeda aashuunku-adin ma ahan aashuunku-adin waxaan u sheeganaynaa dowladda federaalka waxaan u sheeganaynaa midda ilaahay idankiisa galmudug meesha ay nooga maqan tahay baan dabagelaynaa nin hashiisii maqan tahayna ma harsado hadday federaal tahay waxbaan la leeyahay hadday tahay galmudugna waxbaan la leeyahay ma ahay qof likaa oo meel iska taagan qof xuquuq leh oo wax sheegan kara oo caddaysan karaana shirkaan aad baan u soo dhawaynayaa shirkaani waxa weeye waa shir nabadeed waa shir ay ku shirayso uga talinayso beesha maxamed amaan reer aayaheeda uga tashanayso ma ahan shir ay cid ku dhibaataynayso ma ahan shir ay dad ku borobagandaynayso laakiin waa shir ay uga tashanayso aayaheeda kamana maqna in ay rabto wax kastoo ay xaq u leedahay inay hesho oo bini'aadanku uu xaq u leeyahay hadday tahay degmadan ay degan tahay iyo hadday tahay gobolka ay degan tahay iyo hadday tahay dowladda federaalka ay ka tirsan tahay waxay xaq ugu leedahay inay ka hesho marnaba kama marna qodobada shirka qurba joogtii shirkan gacan weyn ka geysatay oo aan dhihi karna la'aantood wax badan ma qabsoomeen ayagana waa u mahadcelinaya waa mahadsantiin walaalayaal intaas ka bacdi shirkan waa shirweynaha shir hore hadda ka hor loo iclaamiyey waa daafurka shirweynaha ay ka talinta beesha wardhaceed ajandihiisuna waa 4 qodob oo kor ka xusan waxaan rajaynayaa insha Allah inuu noqdo shir qayr ku dhamaada oo wixii loo qabtay insha Allah laga guulgaaro ajandihiisuna waa saas waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhalinyarada aqoon-yahanada ee shirkan ka soo abaabulay qurbaha iyo qarankaba aad iyo aad baan waxaan leeyahay jazaakumullahu khayran ilaahay subhanahu wa ta'ala ajr weyn ha idin siiyo waxaan rajaynayaa insha Allah shirkan inuu ka soo baxo miro xoog leh oo wax ka tari doona mustaqbalka iyo nolosha mujtamaca uga raceed meel kastoo dunida ay kaga sugan yihiin gaar ahaan deegaanada iyo maamulada aan wax la leenahay anigoo ku hadlay kamida dhalinyarada beesha maxamed amaan reer waxaan soo dhaweynayaa shirweynahan looga talinayo beesha maxamed amaan reer ama beesha wardhaceed ay ku tashanayso ayadaheedana uga tashanayso sidii waxa la yiraahdo ay wax ula qaybsan lahayd meesha ay degan tahay dadka la degan sidii ay wax ula qaybsan lahayd haddii ay ahaan lahayd galmudug haddii ay ahaan lahayd dowladda federaalka iyo haddii ay ahaan lahayd deegaanka inagu xeeran intay wax la leedahay dhan ay wax la qaybsanayso waan soo dhaweynaynaa maadaama uu yahay shirkan shir looga tashanayo ay beesha qof kasta oo ka tirsan beesha maxamed amaan reer inuu yimaado waa muhiim jiddan in laga maqnaado maaha waa in ayaheena ka tashanana waa wax mar hore loo baahnaa haddiise hadda aan ka tashanay oo bilownay in aan soo dhammaystirno shirka oon soo buuxinaa la rabaa inta naga maqan culimaadudiin dhalinyaro haween odayaal dadka maqan oo muhiimka caqliga aqoon-yahanka dhammaan inay yimaadaan kana soo qayb galaan qof walbana uu kaalintiisa qaataan doonaynaa kaani waxa weeyaan waa shir wada tashi waa shir beesha wardhaceed ay leedahay waa shir ay kaga tashanaysa aayaheeda iyo danaheeda ma aha shir nabadgelyo darro ma aha shir xasaasi ah ma aha shir oo dad wax u dhimaysa ama darisyada wax u dhimaysa iyo dadyowga dariska nala ah ma aha shir maxay ahayto aan wax ku dhibaataynayno shirkayagu waa shir aaya ka tashi waa shir aan uga midoobayno wixii dantayada wixii aan dantayada ahayna aan uga harayno
duraan maxamed samatar oo kamid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda beeshan isla markaasna xilka wasiirka arrimaha gudaha galmudug soo qabtay ayaa dhankiisa ugu baaqay dhinacyada kala duwan ee beeshan inay ka qayb qaataan midnimada guud ee beelaha oo ay wadaagta yihiin markii gurigaaga aad hagaajiso ayaad inta xaqin qaadato guriga dariska aadi kartaa ee soo nadiifin kartaa iyo dariiqyada laakiin adoo gurigaagii wasakhaysan yahay inaad dariiqyadii ma nadiifinayaa tiraahdo waa laga qurxoon yahay waa gurigeeni haddii aqli aad leedahay iyo haddaad cilmi leedahay iyo haddaad dhaqaale leedahay ilaahay waa kugu fiirsanayaa asagaana ku amray inaad marka ugu horeysa qaraabada ka bilowdo waa aatil qurba wal yataama wal masaakiin qaraabadii baynu nahay haddii aynu aqoon isdheernahay waa inaynu annagu horta marka hore iska bilownaa sidii aynu aqoonteena ugu shaqayn lahayn ehelkeen haddii aynu dhaqaale haysanno sidii dhaqaalaheena ehelkeen aanu ugu adeegsan wax aad iyo aad u qurux badan oo il iyo aragba ku farxaan ayaa meeshan ka dhacay waxaan u mahad celinayaa dhammaan intii soo abaabushay waadna mahadsantihiin wixii ka soo baxana waxaan rabaa sida bilowgeedu u qurxoonaaday inay u qurxoodaan ilaahay amarkiisa waana ku dadaali doonaa muddada uu shirkaani socdo ayaa looga hadlayaa qodobo u badan aya ka talinta beeshan iyo arrimo ku saabsan awooda qaybsiga siyaasadda deegaanada dowlad goboleedka galmudug iyo dowladda dhexe ee ku aadan beeshan سعيد عبد محمد